waxaanu halkan ugu nimid oonu ka soo qayb gallay xafladdan ay qabsanayeen garabka Jamaal Cali Xuseen oo ahaa garabkii ucid oo shirweynihii xisbigooga ay ku qabsanayeen ay ku dooranayeen murashaxa iyo gudoomiyaha anagu xisbi ahaan runtii waxaanu aad iyo aad uga xunnahay oonu si cad u cambaaraynaynaa go'aamadii maxkamadda oo xukuumaddu ay garab martay go'aankii guddiga diiwaangelinta oo ay xukuumaddu garab martay ayadoo si badheedh ah maanta u burburinaysa xisbigii labaad ee qarankani lahaa oo ah xisbiga ucid aad iyo aad baan uga xunnahay waxaannu dareemaynaa ama cad oonu ummadda halkan uga caddaynaynaa inaanay xukuumaddan ahayn xukuumaddii dimuqraadiyadda dalkan dhisi lahayd ee ay tahay tii burburinaysay runtiina Jamaal aad iyo aad baan uga tacsadaynaa iyo garabkiisa qaabka loola dhaqmay muddada dheer ee ay xukuumaddu sida indhala'aanta ah ay dhinac u taageeraysay xisbiga waddanina in badanuu indhaha ka qarsanayey waxaannu si cad u cambaaraynaynaa go'aanka ay maxkamaddu qaadatay ee inna xuquuqdoodii siisay xisbigii ucid inna ay xuquuqdoodii u diidday aad iyo aad baannu cambaaraynaynaa waannu ka xunnahay waxaannu leenahay ummadda reer Somalilan qasab ku dooran mayso cid madaxtooyadu ay wadato ummadda reer Somalilan codkeeda xor bay u tahay lamana qasbi karo ummadda waxaan ummadda ku guubaabinaynaa inay abaal uga dhigto codkeeda halkay doonaysa ee xaqa ah oo ah Jamaal inay siiso codka waad mahadsantihiin